السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كينا ونوغا اللي دونا تاريخ دي سيدك. ديسمبر 21 كون 1920 waa maalinkii u geeriyooday geesigii Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. kadib 100 sano maxay Soomaalidu ku xasuusan doonaan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan? sayidku waxa uu noolaa muddadii u dhaxaysay 1856 ilaa 1920. waxa uu ahaa hogaamiyihii Darwiish lana dagaalamay gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga, isagoo kula dagaalamay dhulka loo yaqaan Somaliland, Nugaal iyo Taleex. sayidku oo cadaanku ugu yeeraan Madmullah oo ah wadaadkii waalna waa sheeko kale oo Soomaaliyeed oo taariikhda baaldahaba ka gashay. sayidku waxa uu dhashay sanadkii 1856 gugii la magac baxay Gobaysane oo ahaa gubar waaqa ah. dad iyo dunyaba wixii dhashay hanaqaad noqdeen. wuxuu ku dhashay balli la yiraahdo Sacmadeeqe oo Buuhoodle ka tirsan. quraanku waxa uu ku bartay gurigooda, cilmigana waxa uu ka raacday xirfad dhigi jirtay Nugaal abaarihii 1892. wuxuu u kicitamay Maka iyo Madiina, waxayna isu raaceen 13 wadaad oo ay isku reer ahaayeen. sayidka magaalada Maka waxay isku arkeen wadaad Suudaani ah oo Saalax lagu magacaabi jiray. sayidku waxa uu ahaa dariiqada Saalixiyada oo ka tirsan Suufiyada. Xaaji Maxamed 1895 ayuu dalka dib ugu soo laabtay. markii uu dalka soo caga dhigtay, Berbera ayuu Ingiriiska canshuur ugu diiday, isagoo kor ugu qaylinaya kuna afcelinaya ninkii cadaanka ahaa. waxa uuna ugu jawaabay, adiga yaa canshuurta ka qaaday markii aad halkan soo caga dhiganaysay? dabadeedna ninkii Ingiriiska ahaa ayaa yiri, waa wadaad waalana inaga daaya. sidaas daraadeed waxay Ingiriisku ku magacaabeen wadaadkii waalnaa. Darwiish 20 sano ayay dagaal ku jirtay, mar la jabiyay iyo mar ay wax jabiyaan. Xabashi iyo Ingiriis iyo Talyaani intaba fooda ayay isdareen. heshiisyo badan ay galeen, dhammaan guuldarra ayay ku soo dhamaadeen. sayidka gabaydiisii waxaa ka mid ahaa 9 nin oo walaala ah sideenaas, 8 bahgaar tahay sidiinaas, ninkuna bahgaar yahay sidaydaas, 8 ninkii siri sidiinaas, ninkuna sirtii og sidaydaas, haddaynu is siri sideenaba ma iska kala tagnaa sideedaba. 1900 ilaa 1920 41 goobood ayay ku kulmeen ciidamada Darwiish iyo Ingiriiska. kuwii ugu waaweynaa ama dagaalada xumi ka dhaceen waxaa ka mid ahaa Afbakeyle, Fardhidin, Cagaarweyne, Daratoole, Jidbaalle iyo Dulmadoobe. Agoosto 1913 duulaankii koobaad iyo kii labaad oo bilowday 1899 waxa ay dhamaadeen Oktoobar 6, 1902. goobihii Ingiriiska iyo sayidku ku kulmeen waxa ugu waaweynaa Afbakeyle iyo Fardhidin. Ingiriiska intii ay socdeen labadii duulimaad ee hore waxa u korodhay waayo aragnimo dheeraad ah, waxayna ogaadeen xoogga Darwiish oo ah mid aan dhayal lagu loodin karin. July 3, 1903 waxa dhamaaday dagaalkii saddexaad oo intuu socday sayidkii Ingiriisku bari iyo waqooyiba ku dagaalameen. dagaalkii afraad wuxuu ahaa mid ay xoog ugu qayb qaateen maraakiibta dagaalka, waxayna Ingiriisku go'aan ku gaareen in sayidka sidii dawlad xoog badan oo kale loola dagaalamo. goobihii la isaga hor yimid duulimaadyada socday oo Darwiish iyo Ingiriis isku haleeleen waxaa ka mid ahaa Beerdiga, Cagaarweyne, Daratoole, Taargooye iyo Jidbaalle. dawladda Ingiriiska waxay isku dayday inay sayidku kula isticmaasho siyaasad la mid ah tii boqorkii ay kula dhaqantay oo ah inay maal iyo mushaar joogto ah siiso. dagaaladii caanka ah ee dhacay waxaa ka mid ahaa dagaalkii lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska Rajad Covell, gaalkaas oo Soomaalidu u taqaan Covell, ahaana ninkii sayidku ka tiriyay gabaygii caanka ah ee ahaa adaa koofilow jiitayoon. waxa uuna yiri sayidka, adaa koofilow jiitayaan dunida joogayne, adiga jidkii lagugu wadi jimcilaanide, jahannama la geeyow haddaad aakhiru jahato. nimankii jannu kacay warbay jeriini shaleeye, jameecooyinkii iyo haddaad jawhartii aragto, siduu eebbahay ku jirabay mari jawaabteeda. daraawiishi kaarnagama dayntan iyo jeerkidhe, Ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jaciyo baruude, waxaynu janjunteenba waajibashadiinidhe. jirta weerar bay goor barqanagu jitayendhe, anigana jigray ilaa helen shalay jahaadkiidhe,
jeniga hortisay rasaasigaaga joojidhe jiraayaday ila dhicin jili cafkoodii dhe siday kugu jeexeen magliga jaraaracdii sheego bilaawuhu siduu ku jarjaray jirarka u muuji afjeclaysigii baanu yidhi jallowiga dadhe jaljalleecidiibaa wadnaha jebka soo ruuqaydhe jeedaaladiibay indhuhu koruu jallaadmidhe jimic kagama helin tugmadan jeriyey ruuxidhe markaan juuqidhaadaba afkayga jifayendhe dhaxaan jalaacaye dheg baan jalaqlaysindhe wartaan jareerana gafo nolol ka janqaday sidaa janaanadii hore tashigu igu jagugnadhe taladii jinnigu ii hormaray jaasadeed helaydhe jidaha xanuun kale markii la igu jeeraarshay jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waadhe markay ruwaadu jawtiri horbayiga agjibshendhe jidaha xanuun kale markii la igu jeeraarshay jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waadhe markay rubaadu jawtiri horbayiga agjibshendhe jidhkaygii bahal baacuunoo jitay hilibkii dhe jumidiyo baruurtii dhurwaajugu ka siiyadhe jiljiladii iyo seedaha tukayigaaga jaadindhe haddaan laysjikarayn tolkin laga jilroladhe weligood waxaa lagu jaraa jilib dhigdunladhe daraweeshe waajibin dhowga iyo jawga soo bixidhe ciidamadii ingiriiska ee bariga waxbaa ka tari waayeen sayidka waana u soo dhowaan waayeen taleex iyo qalcadihii kale sayidku waxa uu ku caanbaxay tabca iyo taatiga dagaal ugu dambeyntii waxaa sayidka lagu soo kacshay diyaarado dagaal waxaana weerarka hogaaminayay Dhama Duuliye Gordon wuxuuna cadowga isticmaalayay diyaarado noocoodu ahaa DH9 waxayna duqeeyeen taleex jidil iyo xarumihii sayidka oo dhan sidaas daraaddeed darwiish waxay ahaayeen urur gabanimo doon ah ee adduunkan ku sugan kii ugu horreeyay ee diyaarad lagu weeraro sayid maxamed cabdulla xasan intaa kadib waxa uu soo aaday dhanka iyo koonfurta halkaas oo ay ka sii wadeen dagaalkii ay kula jireen ingiriiska iyo talyaaniga oo ay uga saarayeen cadowga dalka ugu dambeyn sayidku waa uu geeriyooday allah u naxariistay geesigii Soomaaliyeed waxa uu ku geeriyooday aagga Webi Shabeelle degmo ku taala gaar ahaan degmada Imey December 21/1920 ayuu geeriyooday geesigii Soomaaliyeed waxaana la tabiyay inuu u geeriyooday xanuun lagu sheegay duumo iyo qandho oo daraawiish si ba'an u haleelay